بسم الله الرحمن الرحيم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga muslimiinta meel kastoo dunida aad ka joogtiin waa salaamantihiin. waa ustaad cabdulqaadir siido ibraahim oo aad ugu barateen in uu idin soo gudbiyo barnaamijyada barashada ducooyinka iyo adkaarta. qof walboo kownkan ku nool oo allah subxaanahu wa tacaala ka rajaynayo inuu musiibooyinka iyo kurbada iyo murugta ka badbaadiyo waa in uu adkaartii nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo ducooyinkii inoogu tagay waa inuu akhristaa. qofka muslimka ah oo mu'minka ah waa inuu mar waliba allah subxaanahu wa tacaala uu ku xiran yahay. haddaba maanta waxaynu casharkeena 7 ee ducooyinka aynu ku qaadan doonaa maa yuqaalu cinda alkarbi waalhammi والحزن. ما يقال عند الكرب والهم والحزن. ducada la akhristo xilliyada murugta iyo kurbada ku haysto ayaanu maanta hadduu ilaahay idmo baran doonaa. qof kastoo muslim ah ama bani aadam ah oo adduunkan ku nool kurba la-aan murug la-aan ma noolaanayo mana ahaanayo. mar waliba waxaadan filaynin ayaa ku soo wajahaya. haddaba xaggee loo cararayaa haddii murugi ay timaado? xaggee loo cararayaa haddii uu yimaado kurba ay timaado? allah subxaanahu wa tacaala, fafiruu ila allah, ilaahay dhankiisa ayaa loo ordayaa. haddaba kaana calayhi salaatu wassalaam nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid akhrista xilliyada kurbada ay hayso ama murugta ducada maanta aan idin bari doono aad ayay qayim u tahay, waana muhiim qof kastoo muslim ah in uu barto. haddaba walaashay muslimadda ahay, walaalkay muslimka ahow, hadday ku soo wajahdo kurbo ama murug, qof bini aadin ha u sheeganin, qof bini aadin ha u calaacalin. waxaad calaacasha iyo maxaa la yidhaahdaa murugtaada u muujisaa iyo sheegashadaada allah subxaanahu wa tacaala. ilaahay ayaa kurba feedaa, kurbada allah kaa feedi karo, allah ayaa murugta kaa qaadi karo. qof bini aadin ah wuxuu ku sheegayo ama uu kuu qaban karo ma jiro ilaa uu kuu ducayn kara. ka ugu wanaagsan oo kuu duceynayaa, kan kalena wuu kugu farxayaa, ama wuxuu bini aadan uu qaban karaa ma jirin. ha u ordin qubuuraha, ha u ordin sheekh hebel, oo u orod allah subxaanahu wa tacaala oo ku uumay. ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheego, ilaahay subxaanahu wa tacaala murugtaada u bandhigo, gacmahaaga u hoorso, yaa allah. haddaa ilaahay tiraahdo subxaanahu wa tacaala, alle wuu ka xishoonayaa inuu ku soo celiyo adigoon laga aqbalin ducadii ama gacantaadu ay eber tahay inuu ku soo celiyo. haddaba ducada maanta aynu qaadan doono, kaana calayhi salaatu wassalaam wuxuu ahaa nabigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam, nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee, haddii muruga ay qabato ama kurba ay qabato ducadan ayuu akhrisan jiray. wuxuu dhihi jiray nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam, laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim, laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim,
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم hadday kurba soo wajahdo ama murug ay qabato wuxuu ahaa nabigeena calayhi الsalaatu wassalaam nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu dhihi jiray لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. hadda walaalkii muslimka aho marka ducada akhrisanayso fa wallahi waxaad dareemaysaa itminaan, xasilooni, deganaansho in allah subxaanahu wa tacaala qalbigaa uu ku xirmaa dareemaysaa. waxaad dareemaysaa isla markiiba qabow ayaa ku soo gelaya. waxaad aadaysaa adduunka ahayn meel cajiib badan ayaad muxuu qalbigaaga u gaarayaa. isla markii waad degaysaa. walaashii muslimadahay walaalkay muslimka aho bani aadam markaa u sheegato asigana waad murjinaysaa, waxna kuuma qaban karo, adigana waa ismurjinaysaa. maxaa kuu diiday in allah subxaanahu wa tacaala arrimahaaga u bandhigato? maxaa kuu diiday in allah subxaanahu wa tacaala inaa u sheegato danahaaga? maxaa kuu diiday in allah subxaanahu wa tacaala murugtaada u sheegato oo aad tiraahdo allaheeyow, allihii untow, rabbigeygiyow oo weynaay oo dulqaadka badnaa, rabbulcarshi alcadiim, allihii carshiga weynaay, allihii xaliimka ahaa oo dulqaadka badnaa, alcadiimi oo weynaa, allihii samaawaadkan uumay, allihii dhulkan uumay, 7 arda uumay, 7 samaawaad uumay, allihii subxaanahu wa tacaala carshiga uumay oo weynaa. maxaa kuu diiday inaad tiraahdo allow murugtaa i haysa iga qaad, allow murugtaa i haysa iga qaad, allow jirida i haysa iga qaad, allow cudurkan i hay iga qaad. ilaahayow ilaahayow ya allah wallaahi aladii laa ilaaha hayruh, ilaahay ii uuntay ayaan ku dhaartay oo adigana ku uumay ayaan ku dhaartay oo kownkan uumay ayaan ku dhaartay. fawallaahi murugtaada ilaahay subxaanahu wa tacaala ismarkii uu kaa qaadaya, wuu kaa feedaya. aman yujiibu lmudara idaa dacaah wayakshifu الsuu. ilaahay subxaanahu wa tacaala miyuusan ajiibaynin qofka oo dhibanaha ah markuu u duceeyo, gacmaha u hoorsado, oo u taagto ya allah u yidhaahdo. walaalkii muslimka ahow ducadan waa muhiim baro. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله أكبر. والله markaa akhrinayso waxaad dareemaysaa raaxa dareemaysaa. فإن شاء الله تبارك وتعالى gunaanadka iyo gabagabadii barnaamijkeena ee barashada ducooyinka iyo adkaarta halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa. waxaan weydiisanayaa allah subxaanahu wa tacaala oo idinkana idin weydiinayaa subxaanahu wa tacaala inuu dembigeena dembi waalidiinteenaba allah dhaafo. ilaahay subxaanahu wa tacaala cuduradan wareegaya oo adduunkan oo argagax geliyey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naga najiyo. ilaahu intii muslina ka kori, ilaahu intii ku dhacayo muslina ilaahu caafi, ilaahu caafimaad degdeg ah sii, ilaahu adaa caafimaad ka haya, ilaahu caafimaad sii, ilaahu caafimaad sii, ilaahu inta xanuunsano muslimiin ah meel kastoo aad joogaan mashaariq alardi wamaghaaribaha ilaahu caafimaad sii, allow caafimaad sii taama, ilaahu caafimaad degdeg ah sii. ilaahu rabbi raxmaano intii dhegaysanaysana ilaahu rabbi raxmaano oo daawanaysa ilaahu ku anfac, kuwii ku camal falay oo barta ilaahu ka dhig. ilaahu waxaan qalday ilaahu iga cafi, waa nafsii wa shaytaani ka ahaatay. wixii aan saxayna ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisay ka ahaatay. waxaan kaa rajaynaa walaalkay muslimka aho talaban laa amra, waa codsi ma ahan amar. ilaahay dartiisa
ummad muslimiinta aad u gaarsiiso oo ay u bartaan ducooyinka iyo sunnooyinka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam si aan u noolayno sunnadii nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo la dagaalano munkarka iyo munkaraadka ku batay baraha bulshada wuxuu gaari doonaa haddaad sii sheergarayso malaayiin qof oo muslimiin ah ayaa ka faa'iideysanaysa dhaxalgal ayuu noqonayaa haddaad dhimato ajar ayaa helaysa uu ku soconayaa qof kasta oo ducadan bartay oo akhriya الدال على الخير كفاعله نبي محمد صلى الله عليه وسلم wuxuu leeyahay ninka khayrka dadka tusiya wuxuu la mid yahay asiga oo sameeyay hadda walaalkay muslimka oo gaarsii muslimiinta adina ku amal fal ilmahaagana bar haday kurbay murug ku qabtana ducadan akhriso ducooyinka way badan yihiin ma taxanaan ka dhigi doona insha Allah taala hadana duca kale oo murugta ku saabsan xusniga ku saabsan waan wadi doona insha Allah taala inta Allah subhanahu wa ta'ala ina baray wajazakumullahu khair wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب